dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xog la xiriirta in al-shabaab ay xirxireen horjoogayaal iyo xubno badan oo ka tirsan kooxdaas al-shabaab. horjoogayaasha ayay dowladda sheegtay inay yihiin kuwa darajada dhexe ah kuwaas oo kooxda ku beegsatay degmooyin kala duwan oo dhowr ah sida ay baahisay warbaahinta Zona. sidoo kale waxa ay al-shabaab xirxirtay maleeshiyaad badan oo la sheegay inay taabacsanayeen madaxda loo taxaabay xabsiga oo aan si rasmi ah magacyadooda loogu shaacin xogta ay baahisay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Zona. sababta qaar ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab iyo xubnaha badan ee kooxdaas ka tirsan ee la xirxiray ayay xogtu sheegaysaa inay salka ku hayso kala shaki soo kala dhex galay madaxda sare ee al-shabaab. cabsida heesta horjoogayaasha ugu sareeya al-shabaab ayaa sababtay in la xirxiro qaar ka mid ah horjoogayaasha darajada dhexe iyo maleeshiyaad badan ayaa lagu yiri xogta ay baahisay warbaahinta dowladda. horjoogayaasha iyo xubnaha kale ee ka tirsan al-shabaab waxaa la sheegay in lagu xiray magaalooyinka Bu'aale, Buulafulay, Saako, Kunyabaro iyo Ceelbuur. talaabadan cusub ayaa imaanaysa xilli al-shabaab ay xirxirtay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ajaanib ah oo ku sugnaa gudaha Soomaaliya kana barbar dagaalamaya kooxda sida ay hor u shaacisay dowladda federaalka. warbaahinta dowladda ayaa xilligaasi baahisay magacyada qaar ka mid ah horjoogayaasha ajaanibta ee la xirxiray kuwaas oo ku kala sheegtay Fuad Bajuni oo ka soo jeeda dalka Tanzania iyo Kudama Kenyatta oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer baahisay in madax iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab siyaabooyin kala duwan dhexdooda khilaaf culus u soo gal galay isla markaana qaarkoodna xabsiga la dhigay sida ay dowladda inta badan ay sheegto. isbitaalka takhasusiga ah Soomaali Suudaan sida uu hore ugu guuleystay 3 sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay qulubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.